badhasaabka gobolka Togdheer mudane Xamsan Maxamed Cabdi oo qaar kamid ah warfiidanada kula hadlay xarunta maamulka gobolka Togdheer ayaa ka hadlay xaaladda guud ee deegaanada gobolka Togdheer waxaana kamid ah hadaladiisa sida tan aan ka warramo xaaladda guud ahaan ee gobolku hadda uu wanaagsan yahay xaaladda nabadgelyada gobolka oo wacan tahay waxaanu galay waqtigii roobka haddaan qiyaasno inta gobolka imika rooban boqolkiiba 5 gobolku waa rooban yahay hadda waxaan loo soo sheegayaa degmada Waraabiye lafteeda oo maaragtay roob jirdo gooyahay uu helay oo maaragtay aad iyo aad uu roob ku helay marka runtii ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa raxmadda uu siiyay gobolku waa rooban yahay boqolkiiba 5 sidoo kale gudoomiyuhu wuxuu ka hadlay mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer waxaana uu dhignaa hadalkiisa sida tan oo dad loo qabiyo saacada loo qadayo oo 450 qoys oo looga qadayo lacagtii gudida abaaruhu ay haysay oo fayskii hore la qaybiyay ayaa jira waxa jira beer qodaalo kale oo ay hay'aduhu maaragtay faawiyo ay fulinayaan dadkuna runtii waxay diyaar u yihiin iyagoo maaragtay fulinaya ballanqaadkii madaxweynaha ahaa in xoogga la saaro dhinaca wax soo saarka beeraha diyaar bay dadku waxay u yihiin in maaragtay hadii ilaahay ka dhawaay arinta beeraha ay u dadaalaan dhan kale waxa uu carabka ku dhuftay in dadweynaha ku dhaqan gobolka Togdheer ay u diyaar garoobaan xuska maalinta qaranimada Soomaaliland ee 18 May waxaana kamid ah hadaladiisa sida tan intaan kala soo noqonay oo 18 kamid ah nagu soo foole waxaan dadweynaha gobolka Togdheer maaragtay aan halkan baa uga diraya inay aad iyo aad maalintaasi ay xuskeeda uga soo qayb galaan iyadoo waliba ay kaga duwan tahay goboladii koonfureed maamuladii isaga kala dambeeyay ee dhibaatadu inaga soo gaadhay ee aynu kaliftay inaynu qaxno oo la qaxo oo hantidii iyo adduunkii iyo waxa weeyaan dadaalkii la geliyay gobolada waqooyi aad ogeedeen maalin qura in laga dhaqaaqay Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga Soomaali Cable Burco